Soomaaliya waxay si tartiib uga soo kabanaysaa 10 sano colaada waxaana la hormarinayaa helitaanka adeegyada dawladeed oo la isku halayn karo. hase yeeshee waxay sii wajahaysaa caqabado dhanka cimilada kuwaas oo si adkaynaya helitaanka cunno lagu tashan karo. dalkani ku yaala geeska Afrika waxaa dhibaato baani ku haya abaaro soo noqnoqday iyo cunno yari taasoo malaayiin qof ka saartay guryahooda kuna qasabtay inay ku noolaadaan xariyo loogu talagalay barakacayaasha. dadkan ay dhibaatadan saameysay waxa u badan haween iyo carruur ay daadoodu ka yartahay 5 sano kuwaasoo wajahaya caqabado caafimaad oo halis ah. dokumentarigani waxaynu ku soo bandhigi doonaa dadaalka ay hay'adda tuulada carruurta ee SOS ay ugu jirto badbaadinta nolosha iyadoo horumarinaysa helitaanka adeegyada caafimaad iyo nafaqada ee Soomaaliya. sida lagu xusay warbixintii ugu dambeysay oo soo saaray macadka isku dhafka qabeelka cunnada ee IBC Soomaaliya 4.4 milyan oo qof ayaa la kulmi kara cunno yari baan dhamaadka sanadkan 2024 haddii aan tallaabo la qaadin. warbixintu waxaa kaloo ay ka digaysaa in 1.6 milyan oo carruur oo 5 sano ka yar ay halis ugu jiraan nafaqa darro ba'an halka ku dhawaad nus milyan kalena ay soo food saartay nafaqa xumo ba'an. si looga jawaabo dhibaatada soo korortay hay'adda tuulada carruurta ee SOS oo xubinka dadaalada caafimaad ee caafimaad balaas ayaa bilowday fulinta mashruuc lagu horumarinayo caafimaadka iyo nafaqaynta bulshada kaasoo ay ka hirgelisay qaybo badan oo ka mid ah dalka. mashruucaasi waxaa maalgelisay hay'adda ECO. anigay oo iga xanuunsanaay wuuna liitay markaa aan isbitaalka keenayay wuu shubmay wuuna matagay wuuna qandhanaay marka hooyo aabaa waxay dhaheen dhakhtarka isbitaalka SOS geey cunigaan saandare iga heesay inuu ilku u soo baxaya u maleynayay marka misdeen cunigaaga isbitaala la tagay waa seexanay misdeenna xaalad culus oo galaa misdeen isbitaalka imaaday dhakhtarka la kulmay wuxuu dhahay cuniga intuu saan ku soo noqonaya maxaa u heysay daawooyin ay siiyaan cunigana waxay dhaheen hadda kadib asoo saan soo noqonaya guriga ku soo heysaan oo dhahay dhakhtarka haddana warqadan qaad xaqiiqay malmalaadka u qaad oo dhahay isbuuc dhaf ugu imaamo malmalaadadan si oo dhahay. hay'adda tuulada carruurta ee SOS waxay diiradda saartay bixinta adeegyo kala duwan oo ay bulshada u baahan tahay kuwaas oo ay ka mid yihiin dhisidda qaybo lagu xanaaneeyo dhallaanka ka soo kabanaya nafaqa darrada ba'an, dhaqangelinta nidaam lacageed oo dijitaal ah oo lagu taageerayo hooyooyinka carruurta nafaqa darrada awgeed ula galo cisbitaalada, dhisidda qaybaha hooyooyinka ku umulaan ee dhammaan goobaha laga dhaqangeliyey mashruuca. ستمانة فورا أنا قبلي ذا عرضة بعدي أنا جو ستمانة فولا هسا waxaan islaaman oo iska yar baadiyaa ay soo qaadeen mar dambe anoo taa igu bartay madaxeera id suuqa dhan kala waa ka cabso jira hataa soo qabsamo kale qafka ugu daa falan be cirbad lagu durma dhiiga daarabta dhiig waxa ku iman karo waxa la qabtay galabtii la qabtay 2 saac subaxnimo waa dhan daryeel waa la sameeyay anigu xataa soo socsana oo oxygen la igu xiray wax kasta la sameeyay ma sha Allah anigu ooyayo la deedeliyaa korka la saaran oo madaxiisana kala dheeraano ma sha Allah meeqa dollar ah shay $180 she's received $180. faqadarada wax badan oo kamid ah waxa keenay inaysan haysanin dhaqaale ku filan inaysan haysanin service livelihood oo ku filan taas marka maadaama ay sababtay in carruurtii ay jiiftaan xarumaha establishment center ka ah mashruucan HIP 2024 iyo caafimaad balaas iyo ECO iyo SOS waxay isla go'aansadeen in servicekaas iyo gaabkaas la buuxiyo. She worked well for her, she's able to feed her children. waxaad marka qaar dhici karto in hooyo Soomaaliyeed oo carruur badan oo ka soo tagtay xaafad uga soo tagtay inay keensato mid nafaqa darro ah taasna inaysan u saamaxaynin inay isbitaalka cunugii ku hayso servicekii loogu talagalay uu ka faa'iideysto waqtigii loogu talagalay isbitaalka uu joogo laakiin alxamdulillah mashruucan markii la soo kordhiyay waxaa la bilaabay bishii October hadda aan ku jirno sanadkan 12 waxaan dareemaynaa improvement badan iyo ka hortag in carruurta isbitaalka laga bixiyo waalidkii ay moral u helaan inay carruurtooda ka faa'iideystaan servicekaas. sidoo kale hay'adda tuulada carruurta ee SOS waxa ay bartilmaameed ka dhigatay taageeridda bulshooyinka ku nool deegaanada ay adag tahay in la gaaro sida tuulooyinka degmada Balcad
iyadoo u fidisay adeegyo caafimaad oo loogu geynayo guryahooda. biyaha inaa nadiif aadaan haddii biyaha nadiif ku aawaan waa inaa karkaraysaa biyahaas. iyadoo oo loo marayay hindise loogu magac daray ICCM Plus, bulshooyinka waxay helayaan baaritaanno caafimaad, talooyin iyo daawo bilaasha. ujeeddaduna waa in laga hortago cudurrada dilaaga ah sida duumada, oof-wareenka iyo shubanka. adeegan wuxuu ka caawiyay bulshada deegaanka in ay helaan daawo free ah ayna ku helaan guryahooda. lambar 2 waxaa kale ka caawinay tagista isbitaalka ay u safri jireen in ay meesha ka baxdo. lambar 3 haddii la kulmaan misana xanuuno daran oo wax laga qaban karin haddii aan ku aragno in aan ku xirno isbitaal. dhinaca kale xarunta SOS ee magaalada Baydhabo ayaa waxay samaysay hab gaar ah oo lagu tababarayo hooyooyinka dhinaca caafimaadka, xoojinta nafaqada iyo daryeelka, kuwaasi oo la isugu duwayo kooxo ka badan 15 xubnood. hindisaha ayaa ujeedkiisu yahay xoojinta wacyigelinta ku saabsan caqabadaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. ilaa iyo haddana boqolaal ayaa la tababaray kuwaas oo sii tababaraya hooyooyin kale, gaar ahaan hooyooyinka hadda bilowga ah. may ku baradayeen horta koognaas nuujinta ciyaalka ma dareensanayn anoga hadii halka sanadaal wala sokoreen qas wala tamareen qas wala seeray hadda anoga nadala naaska siisade mayleeray libilood anoga diim kala masiyay naaska siisade naas nuujinta nidaam oo sharaf ee ka nuujisaday diida mayleeray in sheegadan ka baraday naas nuujinta wali aan horta shakhsi ahaantay nadaafadii iyo naas nuujintii eeda wala ka fahmi maada tumaada mailing asaasay sababta ini oo wacyiga oo maamooyinka la dhiso walbadan la bara oo markaasan ka saana soo yacni sheegada wacishoon dhisma ku faa'iideysadaan yacni maamooyinka markii la dooradaay ama la xuladaay meel ku xuladay kaamam oo SOS ka shaqeeyso qaabka la xuladayna may haytay ini oo dad meeladegan la xulado kubacdana may leeyahay in sheegada lan sameey qof CNW oo nin dhaxay maada tumaadaga iyo qof kala dhaxay soo marka in isku wada shaqeyn arintaas oo maada tumaadaga awalkii hore naas nuujinta eeda may leeyahay in sheegada wacishan ku dhisanayn hata laakiin intii la asaasi eedan bardeen naas nuujintii ciyaalkeedan wanaajin cilmo badan ku faa'iideen waana may eedan ka mahadnaqayna mar walba uu aragna SOS idanka ma hadnagaaya maadaama cilmo badan ku korsadeen. cunno caafimaad iyo nafaqo leh oo la siiyo bulshada ayaa wax badan ka taraysa dhamaystirka dadaalka hay'adda tuulada carruurta ee SOS si wax looga qabto cudurrada iyo nafaqa darrada. si loo gaaro yoolkaasi, hay'addu waxay beeraha casri ah wax u soo saaraya u samaysay qaar ka mid ah hooyooyinka magaalada Baydhabo. waxay si koox uga shaqeeyaan beeraha iyagoo soo saara cunno nafaqo leh oo ay ku quudiyaan qoysaskooda iyo dakhli dheeraad ah. beerani koostinin kabati gadani suuqa laseeni inshaad beeso yaku fayidni maliyanka omala ku herni marlamaad iyo marsadahad abuurkan wiilaley waay beesadaan ku heli beerta maliyanku ilamada 100 ay nagati familka iyo kamaariyay wala in qobdiyeeda walan ka qobsaday. mashruuca caafimaadka iyo nafaqada waxa uu bilowday bishii Abriil ee sanadkan 2024 waxaana la filayaa inuu socdo ilaa bisha Juun ee sanadka 2025. dadaalka hay'adda SOS ayaa sabab u noqday inay kumanaan kun oo qof ay helaan gargaarka ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan. guulaha inta badan aan gaarnay markaan joogno SOS Baydhabo District Hospital aad ay u badan tahay lama soo koobi karo. taasoo ay daliil u tahay bukaanada markaas lagu xiran say maaragtay u aaminsan yihiin SOS service loo qabanayo haddii ahaan lahayd dhanka SC oo kale daawooyinka ay ka helayaan daryeelka maaragtay iyo korjoogteynta fiican oo shaqaalaha ay siinayaan guud ahaan isbitaalka yani qaabku u socdo managementkiisa ha noqoto iyo maaragtay SC si gaar ah aad ay u daneeyaan taasna waxaa sabab u ah shaqaalehen oo u tababaran in bukaanka si fiican uga adeega daawooyinkii looga talagalay oo goobta laga helo sida aanihii nafaqaysaneed iyo daawooyinkii kale oo maaragtay ku habboonaa. guud ahaan mashruuca caafimaadka iyo nafaqadu waxa uu gaaray natiijooyin la taaban karo oo dhinacyo badan leh. tusaale ahaan 336,849 qof ayaa helay la talinkana faa'iideystay adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ee loogu talagalay bukaan socodka.
taasi oo u dhigantay in la gaaray 50.20 boqolkiiba yoolkii la hiigsanayay. sidoo kale adeegyada loogu talagalay bukaanjiifka ayaa waxaa ka faa'iidaystay 10,642 bukaana kuwaasoo la sixiyey isbitaalada, taasi oo u dhigantay in la gaaray 52.80 boqolkiiba hadafkii la beegsanayay. dadaalada dhinaca talaalka waxaa ka faa'iidaystay 6,441 carruur ah oo hal sano jir ah kuwaasoo laga talaalay cudurka jadeecada, waxayna ka macno tahay 54.5 boqolkiiba in la gaaray yoolkii la hiigsanayay. dhinaca kale tirada carruurta ku dhalatay isbitaalada waxay gaartay 6,522 waxaana dhalintooda ka qayb qaatay shaqaale xirfad leh, taasoo ay macnaheedu tahay in 56.10 boqolkiiba la helay yoolkii la rabay. natiijooyinkani waxay muujinayaan horumarka joogtada ah ee bixinta adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah.